dadka halbowlayaashiisa laguma nafsan karo de oo lama bayacsan karo. Anigaygan hadlaya dirqa baan ku hadlaya wadnaha waxaa igaga jira baal 70 kuna intaa wax ka badan kama hadli karo. waxaan leenahay ma ogolin hay ma ogolin xukuumaddan waxaan leenahay waxaa la iskugu yimid oo weliba caado loo iman doonaa intaan waxba maahe xaafaddu iskugu iman doontaa waxaa weeye kaybalkaaga laga dhisayo. kaybalkani maanta maalintii la isku qari jiray maaha. xaafad 10 kun oo qoysana kaybal qarsoodi lagama dhex dhisan karo. kaybalka waan ognay ka guri ku jira gurigiisa kuma jiri karo, ka jagali kama iibsan karo, ka guri lama karaysan karo, isagu kuma noolan karo. dadka halbowlayaashiisa laguma nafsan karo de oo lama bayacsan karo. anigaygan hadlaya dirqa baan ku hadlaya wadnaha waxaa igaga jira baal 70 kuna jiifkan ku xiiqa daaradayda in lala yimaado kaybal de ma ogolin qarsoodina lagu dhisan kari maayo, badheenna loogu dhisan kari maayo. waxaanu leeyahay tirisom waarda idinma necbin, dadkaygii baa tii xumaan inoomay horrayn, laakiin ma ogolin de waxaan dad iyo maalba ku sheegayno kuwaayna ma ogolin laguna bayacbashtayni maayo. waxaanu leenahay korfayo waa la dhowraaye wixiina qaata oo dhul bannaanoo fara badan baa jira ka dhisa oo idinkuna hays khasaarinina bilaha rabadaana yeena isku akhrisayn ee naga qaada culayska naga qaada. intaa wax ka badan kama hadli karo. waxaanu leenahay ma ogolin hay ma ogolin xukuumaddan waxaanu leenahay 10 kun oo qoys baanu nahay yaa dee noloshayda ma ogolin 10 kun oo qoys ma ogolin in bayacamarshi aanu ku dhimanno wuxuu qofelayin aanu ku dhimanno ma ogolin abasharka yeelayso. carruur yar baa jirta, dad wadnaa laga hayaa jira, waayeel baa jira, dumar ubalaa jira oo mula. ma ogolin dee ma ogolin halkaa bacadka xilliga barladan la keenay waxa weeye waxaanu diidanahay weye. xukuumadda waxaan leenahay madaxweynuhu ka gow yahay hala laga daayo.